xaaladda Puntland waa fiican tahay guud ahaan amnigu aad u wanaagsan yahay hay'adaha amnigu aad u shaqeynayaan ciidamada qalabka sida intii tabartooda maamulteed bay ku jiraaneen baryaha kanna waa lagu guuleystay Puntland guul weyn ayay ka gaadhay iyo horumar iyo meelo la taaban karo arrimaha sugitaanka difaaca iyo amniga intaba waxa la sheegaa mararka qaarkood in ciidanka daraawiishta oo kamid ah ciidamadii ugu horeeyay oo Puntland lagu aasaasay in si wax ay ka yihiin oo matalan cabashooyin tiro badan xagga ciidanka soo yeerayo oo gadood baa la arkayaa mushaar la'aan baa laga cabanaya arrimaha maxaa sabab u ah arrimahaas waxba ka jira mushaaraadka waxa jira ciidan aan muddo mushaar qaadan ayaa jira sida ciidanka مثلا نقال أو كلاتو بوهودله قال كعيو ينتلمده متبادل مشاركة ما يسان قادم هبسي كلا بدنا هذينه عبرشة مشاركة نودي بتجرته وأنا هرجني دولة دائم بطن marka ma gobolada kaliya ka jirta mise gobolada kale iyaga kama jirta cabasho miyaa gobolka bari waa ka jirta misalan booliiska oo kale waxba ka jira laakiin bari sida badan maadaama ay duruufaha xaalad ku jirto qalafsan mushaarka ciidanka haatan difaaca bari ku jira sida badan soo waa helaan mushaaraadka maxaa sabab marka ciidamada goboladan hadda aad tilmaanto Nugaal iyo gobolka Mudug iyo gobolkan Buuhood inaysan qaadan iyagu waxa sababay kulli sababta waxa la weydiin karayaa waa mas'uuliyadda dawladda ayaa la weydiin karayaa waayo ninkan askariga oo shaqeynaya oo difaaca ku jira wuxuu u baahan yahay goortu bisha dhamaysa wixiisa inuu helo hadii kale ay sabab macquul oo marka wax ku waay karo muwaadiniinimo loo sheego liisaasad waxaaga ama ku maqan yihiin si qanac buuxa laakiin aysan noqon mid laga gaabsado ama aan la xusin aad bay u xuntahay anagana walaac bay nagu tahay maalin kasta inaan taaganahay maxaan ku raadaya askari miskiin aan hortaaganahay wixiisi ay maqan yihiin markaan dawladdu ay dacwadaha ka hadlayso madaxdeeda mas'uuliyadda sarana ay yiraahdaan waxa ma maqna ay yiraahdaan marka lacagta waa ay qaateen lacagtii marka ana taliya anaguna hadaan waxba hayn ilaahay horti ciidankayga waxba qaadan bal ilaahay horti cadeynaya marka wax la dafiri kara ma in ciidanku wax qaadan wax laga qarsan karana ma aha marka way jirta arintaas waa arin rasmi oo jirta wayna ku keeni karaysa waxyaabo badan in ninka haduu wixii yaraad oo ku shaqeynaya uu waayo waxyaabo badan baa iman karay marka imisa bilood baad mushaaradu ka maqanta ciidanka waxaan jeclahay inaan hadda detailka hoose ana sii galin laakiin waa muddo badan hadda aan saas u detail galno xafiiska markii cid aan madaxda is aragno waxaan la sugayay inaan madaxda aan runtii aan xafiiska ku kurano si official la hasiyeeshe de markasta marka waxa la leeyahay maalin walba mishaaradii waa la qaatay ciidanka anaga idinka qaatay beeliye marka mishaarkii waxayagi beeliye because idaacadaha ayaa laga hadlayaa mas'uuliyiinta dawladdu inay mishaarkii dhamaystirtay mishaarkii inuusan dhamaystirin de wax waadax taadu taliyay ciidanka maadaama tahay hadii ciidankaagii aad xogteen mushaar aysan qaadan oo laga yaabo duruufo badan iyo xaasas iyo aruurin ku taxalluqaan madaxdiina ay leedahay mushaarkii waa la qaataa soo inaad si toos ah u hadashido markii hore aad sheegtay oo tiraadid mushaarooyinka arsanaga maqlo arrinta ka hadashin Soomaaliya waan u bandhigay dawladda madaxweynuhu waa og yahay wasiirka maaliyadda waa og yahay wasiirka madaxweynaha ku-xigeenku waa og yahay gudoomiyaha baarlamaanka waan isarrin dhawaan waan hordhigi doona meesha haatan hadii fooltimaada gudo qarsiy hare waxay taagan tahay maxaa meel kama dameyshay taagan tahay marka waxaan soo jeedinayaa in dawladdu maxaan ku radaa ciidanka mishaarkiisa ay hadii Allah idmo si dhaqsaale ay u bixiso ayaan u soo jeedinaya ugu baaqaya ciidankana adkaysi baan ugu baaqaya laakiin adkaysi haday way dhaafta arintu adkaysi markaan meelaha qaarkood way dhaaftay haday dhaafto adkaysina wixii ka yimaada marka waa ceeb weeye waxay noqonaysaa marka in dadkii xuquuqdiisa ay dawladdu si kastaba ha ahaatee inay maaraysa ayaa laga doonayay malaga yaabo laakiin arrintan dhinaca dhaqaalaha la leeyahay walitaa in maanta ay sababayso malaga yaabo Puntland hadda wax dhaqaale la'aan oo dhaqaalaha horta sideedaba dalna sidiisii ahaan maayo Soomaaliya si haajita la ahaan maayo waa dhici kartaa marar badan inay jiri karayaan inay bilay ma garaaxo dhaqaaluhu inay jirto bila fiican inay jirto dadku waa wada xogogaal shaqada iyo xisaabaadkana waa la wada yaqaan adduunka waxba la bartay waa la soo wada ogyahay waxa jira markii ay duruuftu qalabsantaana waa la ogyahay markii qalabsanayna waa la ogyahay wax maanta hortaagan in ciidanka xooga Puntland uu waayo mishaarkiisa oo Puntland dhaqaale xumo haystaa ma jirto hadii sida uu tahay xaaladda wax looga qaban waayo de anigu sabab u joogo xafiiska waxaan u diyaarinaynaa baneeyo hadii alla dhaqso
haddii xaaladaas laga qaban kari waayo sababan xafiiska u joogaba maba jirtaba hadday ii suurtageli kari weyday askariga waardiyaha ka ah inuu gaajo uga tago xafiiska. taa macnaheedu waxa weeye miyaa haddii mushaaraadka ciidanka aan ku guulaysan oo ciidanka waxooda xuquuqdooda waayaan anugu sidaa taliyo kusii ahaan maayo waan iscasiliya miya sidaas wey taa sidaa taliyo kusii ahaan maayo waan iscasiliyaa waana muddo dheeraystay hadda waan sariigtay waan samray waan adkaystay galabta waxaan iga hadlinaya waa arrin soo dhaaftay alamtara soo dhaaftay shiikh alamtarana ku aqriyo soo dhaaftay bay iga hadlinaya marka